أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaynu ku soo jirnay falaa'il qur'aan, quraanka falaa'ishiisa ahadiisi ku soo aroortay ayaynu ku soo dhex jirnay oo dhowr qaybood aynu ka soo waranay. meeshaan waxaynu ka gelaynaa faatihatul kitaab, ayaynu meeshaan ka gelaynaa suuratul faatiha. suuratul faatiha waa suuraddii ugu horeysay qur'aanka ugu horeysay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa uu ku furfurtay weeye. suuratul faatixati, faatixadii suuraddii lagu magacaabay makiyatun, markay ku soo degtay. wa aayaatuha, aayadaheeduna 7 aayaatin, aayadayaalo oo 7 weeye. waxay noqonaysaa kelimaadkeeduna 25 kelimo weeye. xuruufteeduna 113 xaraf weeye suuradda tan. waxaynu meeshaan ka gelaynaa suuratul faatixa, ayaynu ka gelaynaa. suuraddan ayadoo macnaheedu ay noo dambay doonaan oo darsigeennan midka ku xiga uu noqon doono. waxa weeye suuraddan marka ugu horeysa waxaa la yidhahdaa suuratul faatixa, waa suurad oo makiya weeye. akharu culamaa'i sidaas ayay qabaan. waxaa kaloo jira dad yidhaahdeen suuraddan waa madani. labadaas qowl dad jamciya waa jiraan oo yidhaahdeen waxaa weeye 2 mar ayay soo degtay. mar waxay ku soo degtay markay ku soo degtay markii salaada la faral yeelay, marna madiinay ku soo degtay markii qiblada la soo wareejiyey oo waxa weeye xiina xuwilat alqiblatu, qiblada markii la wareejiyey ayaan dhihi lahay na waxa weeye madiinay ku soo degtay yaa la yidhi. taasna waxaa caddaynaya ay yidhaahdeen waxaa lagu magacaabay suuraddatan masaaniya lagu magacaabay. ilaahay waa si uu yidhi walaqad aataynaaka 7 min almasaani waalqur'aan alcadiim. ilaahay uu yidhi nebi maxamedow waxaanu ku siinay 7 oo la soo celcelinaayo iyo qur'aankii weynaay ayaanu ku siinay. marka masaanidaasu macnaha sidaas hadda la leeyahay looma badna. haddii ilaahay yidhaahdo waynu ku tegaynaa aayaddaas oo insha allahu tacaala suuratul xijr ayaan ugu tegi doonaa. masaanidan waxa weeye ragco kasta ayaa faatixada lagu soo celceliyaa, sidaas ayaana masaani loogu magacaabay. sida raajixaana sidaas weeye. laakiin culummada tandhahaaya 2 jeer ayay soo degtay oo marna markay ku soo degtay markii salaada la faral yeelay, marna madiinay ku soo degtay markii qiblada la wareejiyey. ayaa waxay yidhaahdeen masaani sidaasaa loogu magacaabay oo markaasi waxa weeye laba jeeray soo degtay, saasay yidhaahdeen. qaar waxay yidhaahdeen nis maka ayuu ku soo degay, nisna madiina ku soo degay, ma ahan in markaasi 2 jeer ay soo degtay. nis ayaa wuxuu ku soo degay maka ku soo degay, nisna madiina ku soo degay. laakiin wararkaas markii la isku soo duuduubo sida raajix ah oo saxiix ah waxa weeye inay maka ay ku soo degtay. waxaana u daliila ilaahay subxaanahu wa tacaala qowlkiisa walaqad aataynaaka 7 min almasaani waalqur'aan alcadiima laftirkeeda ayaa daliil waxay u tahay faatixa inay ku soo degto maka ay ku soo degto oo ilaahay xaramkiisa ay ku soo degto. maxaa yeelay waxaa la leeyahay suuraddatan oo suuratul xijri ah maki weeye. waa ku tegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waa suurad makiya, ijmaac ayaana lagu yahay. mar haddii suuraddaanu ay maki tahay ijmaacna lagu yahay, ilaahayna uu yihi walaqad aataynaaka 7 min almasaani waalqur'aan alcadiim, waxaa meeshaas ka caddaanaya suuratul faatixa inay maka ay ku soo degtay. waxaa kaloo la leeyahay salaada waxaa la faral yeelay asagoo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam maka uu joogo. maxaa yeele nabiga markii calayhi salaatu wasalaam la dheelmiyey maka ayuu joogay, markaas ayaa salaada lagu soo faral yeelay isaga iyo ummaddiisa. waxaana la leeyahay ma dhicin islaamka dhexdiisa salaad oo waxa weeye faatixada waxaan ahayn lagu dukaday, ma dhicin baa la yidhi. maxaa yeela
haddii la yidhaahdo suuradatanu waxay ku soo degtay madiino salaadana markii nabiga calayhi salatu wasalaam maka markuu joogay la falal yeelay waxaa warkaasu keenayaa in markaasi salaada lagu dukaday waxaan faatixada ahayn haddii la yidhahdo madiinay kusoo degtay marka madiinay kusoo degtay taas waxaa weeye daciif ay ku dhisan tahay laakiin bacd alculamaa'ina way qabaan waxaana daliilu ah in markaasi faatixadu ay ku soo degtay maka ay ku soo degtay islaamkana waxaa weeye aysan dhicin salaad la dukaday oo lagu dukaday waxaan faatixada ahayn rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiix oo saxiix bukhaariga dhigaayaan waxa uu dhahay laa salaata ilaa bifaatixati alkitaab u dhahay salaadu ma jirto oo ansaxaysa ilaa faatixatu alkitaab in lala yimaado mooye marka faatixadu waxay ka mid tahay awaa'ilkii qur-aanka ayay ka mid tahay ugu horreeyey ayay ka mid tahay xagga soo degitaanka marka hadda suuradatan waxaa lagu magacaabay faatixa ayaa lagu magacaabay suuratu alfaatixa waa marka ugu horeysa tasmiyada oo lagu magacaabay waxaa loogu magacaabaa la yidhi liannahaa miftaaxu lkitaabi alcaziiz ilaahay kitaabkiisa casiiskaa furihiisi weeye maxaa yeele waxay furihiisi waxay ku tahay qur-aanka bilowgiisi weeye marka magacaasu waxa uu ka mid yahay 20 magac oo suuradatuna iska leedahay marka asaga ayaa wuxuu yahay magaca ugu horeeya oo mashhuurka ah ayaa waxa uu yahay faatixa suuratu alfaatixa intaas la yidhaahdo haddii marka 20kaas haddii aynu ka qaadanayo suuratu alfaatixa la yidhi 20kaas magac oo suuraddaanu ay leedahay haddii aynu soo qaadano waxaa lagu magacaabaa suuradatan faatixatu lkitaab ayaa la yidhaha kitaabka tii lagu furtay ayaa la yidhaha suuratu alfaatixa waa magaca koobaad magaca labaxaad waxaa weeye faatixatu lkitaab magaca saddexaad waxaa la yidhahdaa umulqur'aan ayaa la yidhaha qur-aanka hooyadiisi ayaa la yidhaha waa aslu lqur'aan weeye maxaa yeela qur-aanka ayaa lagu bilowdaa mar haddii qur-aanka faatixada lagu bilowdo faatixadu sidaasay waxay ku tahay umulqur'aanay saas ku tahay marka mar haddii lagu bilaabanayo fakaanaha asluhu wa asaasuhu waxay ka dhignaatay ayadoo qur-aanka asal u ah oo aasaas ah weeye magaca afraad waxaa la yidhahdaa suuratu lkanzi ayaa la yidhaha kaydka suuraddiisi faatixada waxaa la yidhaha suuratu lkanzi liannahaa nazalat min kanzin taxta alcarshi maxaa yeela waxay ka soo degtay baa la yidhi kayd oo carshiga ilaahay hoostiisa carshiga hoostiisa kanzi ah oo kunuusta ilaahay ka mid a ayaa faatixada laga soo qaaday saasaa marka waxaa loogu magacaabaa layidhi suuratu lkanzi ayaa loogu magacaabay magaca shanaad waxaa la yidhaha alkaafiya ayaa la yidhaahdaa alkaafiya ayaa la yidhaha maxaa yeele qofka suuradda faatixada akriya waxay ka kaafinaysaa gaar ahaan salaada suuradaha kaleentood ay ka kaafinaysaa waxaa la yidhahdaa alwaafiya ayaa la yidhaha maxaa yeele waafiye weeye kaafiye weeye salaada sixadeeda ayada ayaa markaasaa waafiye ah oo markaasi waxa weeye ayada ayaa ku filan ayada ayaa kaafisa salaada weeye can gayrihaa weeye cinda alqudrati markii qofku uu awoodo inuu faatixada akriyo wax kaloo markaasi waxa weeye qur-aana amase adkaar kale ah oo u baahan yahay ma jirto oo ayada ayaa markaasaa ku filan magaca todobaad haddii aynu soo qaadano faatixada waxaa la yidhaha ashaafiya ayaa la yidhaha waa tii shaafinaysay maxaa yeele suuraddatanu waa shaafiye weeye amraasha oo xisiga ah iyo kuwa macnawiga ayay shaafinaysaa magaca sideedaad ashifaa ayaa la yidhahdaa ashifaa ayaa la yidhahdaa tii daawada aheeday maxaa yeele xadiis ayaa wuxuu ahay nabigeenu inuu yihi calayhi salatu wasalaam hiya shifaaun min kulli daa'in ou dhahay faatixadu waxay daawo ay ka tahay cudur kastay daawo waxaase la rabaa qur-aanka ilaahay markuu daawada noqonayo iyo adkaarta rasuulka calayhi salatu wasalaam uu sheegay qofku waxa weeye inuu caqiido fiican uu leeyahay ictiqaad wanaagsan uu leeyahay tawakal ilaahay uu tala saarto uu leeyahay iimaankiisu uu kaamil yahay ayaa loo baahan yahay ee qofku asagoon ictiqaad wanaagsan qur-aanka ilaahay ka qabin tawakal ilaahay aanan qabin qur-aanka aan rumaysnaynin oo aan qur-aanku la weynayn inuu ku caafimaado markaasi ma sahlanaahayso magaca sagaalaad waxaa la yidhaahdaa asabcu almasaani ayaa la yidhahda todobadii lasoo celcelinaayey waxaa loogu magacaabaa la yidhi sabcu lmasaani liannahaa sabcu aayaatin cala asaxiix sawaaءun qulnaa ina albasmalata minha owlaa sida saxiixa suuraddatan waxa weeye waa 7 aayadood
haddii aan dhahno basmaladu waa ka mid insha allahu tacaala khilaafkaas waan ku tegi doonaa basmaladu ka mid weeye ama ka mid maahan haddaan dhahno labadaba haddaan dhahno suuradatan waxa weeye waa 7 aayadood weeye magaca tobanaad waxaa la yidhaha annuur ayaa la dhahaa suuraddii nuurka ahayd suuraddaanu nuur weeye maxaa yeele qur-aanka ilaahay yaaba nuura weeye oo ilaahay subxaana watacaala qur-aanka nuur ayuu ku tilmaamay marka qur-aanku waxa weeye waa nuur rasuulka calayhi salatu salaam waa nuur iimaanku waa nuur waxaa kaloo 11 la yidhaahdaa alruqya ayaa la yidhaha suuratu ruqya ayaa la yidhaha tufidda suuraddeeda maxaa yeele suuraddatan waa la isku tufaa in la isku tufane axaadiista saxiix albukhaari iyay soo aroortay ninkii markaasi saxaabiga ahay waa tii markaasi gaaladii ninkii ka jiraday oo ku tufay 7 faatixo ee lagu caafiyey ariga ay ka qaateen waa ku tegi doonaa haddii ilaahay yidhaah suuradda marka waxaa weeye arruqya ayaa la yidhaaho waxa weeye waa lagu tufayaa qofkii waxaa weeye jiran waa lagu tufayaa 12aad waxaa la yidhaha magaca 12aad suuratu alxamdi baa la dhahaa wa shukr suuradda xamdiga iyo shukriga ayaa la yidhaahdaa maxaa yeele xamdi ayay maaragtay suuradda tanu ay ku bilaabanaysaa shukri ilaahay subxaana watacaala nicmadiisa lagu shukriya ayaa ku sugan waxaa la yidhaha magaca 13aad suuraddan adducaa ayaa la yidhaha waa tii ducada aheeday maxaa yeele suuraddaanu waxa weeye waa 3 qaybood qaybta markaasi waa ku tegaynaahay oo 3aad waxay ka bilaabanaysaa oo ducada ah ihdina asiraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala addaaliin halkaasay ka bilaabanaysaa markaas maadaama ducadaasu ay ku jirto suuraddan waxaa laha adducaa ayaa la yidhaha duco weeye faatixadu magaca 14aad waxaa la yidhaha tacliim almas'ala waxaa weeye mas'alada su-aasha oo laysku tacliimiya ayaa la yidhaha waxaa loo dhahaayane liijtimaalihaa calaa daalika weeye mas'alada tacliimteeda ayay markaasay qofka baraysaa maxaa yeele suuraddu ilaahay sanihiisa iyo xamdi ayay ku bilaabanaysaa kabacdi ayaa waxaa imaanaya in ilaahay wax la su-aashay suuradda aakhirkeeda waxaana ducadu mustajaabo ay ku tahay in markaasi sanaha alle iyo salliga nabiga calayhi salatu salaam la hormariyo sida axaadiista saxiixa soo aroortay oo ducada laga bilaabo alxamdu lilah wasanaau lilah washukru lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah sala allahu calayhi wasalam kabacdi markaasi qofku waxau doona ilahay u weydiiso laakiin haddii aad allahuma rabbanaa horay aad kala goodid taasi waxa weeye ducada ijaabadeedii inay lumiso ayaa dhici karaysa magaca 15aad waxaa la yidhaha suuratu lmunaajaat ayaa la yidhaha la faqidda ama la shawridda suuraddeedii qofka waxaa weeye markuu suuraddan akrinaayo ilaahay munaajaadkiisa ayuu ku sugan yahay alla ayuu la faqayaa subxaanahu watacaala oo ilaahay cilmigiisa ayaa qofkaas uu ku og yahay u kula socdaa maxaa yeele markaad leedahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahayow adiga ayaan ku caabudaynaa adiga ayaan kaa kaalmo dalbaynaa iyaaka nakusu bilcibaadati macnaha insha allahu tacaala waa noo dabamarayaane waxa weeye waa munaajaadka ilaahay baad ku jirtaa rabbigaaga subxaanahu watacaala ayaad la faqaysaa oo aad la koodaysaa magaca 16aad waxaa la yidhaha suuratu tafwiil ayaa la yidhaha bandhigidda suuraddeeda ayaa la yidhaha maxaa yeele qofkan suuraddatan akrinaaye alla subxaanahu watacaala ayaa amuurihiisa u bandhiganayaa ilaahay subxaanahu watacaala ayuu amuurtiisa u bandhiganayaa markaasaa suuradda waxaa lagu magacaabaa oo kalentood suuratu tafwiil ayaa la yidhaha magaca 17aad waxaa la yidhaha suuratu su-aal ayaa la yidhaha su-aasha suuraddeedii maxaa yeele suuraddatan intaad akrinayso alla ayaad wax su-aalinaysaa ihdina asiraada almustaqiim aad leedahay ilaahu dariiqa toosan nagu hanuuni siraada aladiina ancamta calayhim gayri lmaqduub taasi marka waxa weeye waa su-aal weeye ilahay baad wax weydiisanaysaa sidaasaa marka waxaa lagu magacaabaa oo asmaadeeda kamida 20ka suuratu su-aal in la yidhaahdo magaca 18aad waxaa lagu magacaabaa suuratu umulkitaab aa lagu magacaabaa kitaabka asalkiisa ama kitaabka hooyadiisa maxaa yeele kitaabka ayaga ayaa asal u ah ayaga ayaa lagu bilowday ayagaa qur-aanka laga bilaabayaa macaanideeda ayaa cajiiba macaanida qur-aanka oo dhan culammada islaamku waxay yidhahdeen faatixada ayay ku jirtaa qur-aanka macaanidiisa oo dhan qofka ilaahay fahm uu ka siiyo waxa uu ku jiraa faatixada ayuu ku jiraa sirta qur-aanka dhammaantiisa suuratu lfaatixay ku jirta halayidhi suuratu lfaatixa marka waa suurad cajiiba weeye magaca 19aad waxaa la yidhaha faatixatu lqur'aan qur-aanka midii furtay baa la yidhaha maxaa hadda qur-aanka markii la bilaabaayo hagee laga bilaabaya faatixada ayaa laga bilaabaya
ayaga laga bilaabaya saasaa lagu soo yeedaya sida hadda waxaa weeye cabshirkeenan oo markaasi tafsiirka uu ku soconayo waxaa weeye faatixada ayuu saas uga bilaabanaya wahaakadaa suuratu albaqara halkaasaanu ku wadaynaa haddii ilaha yidhaahdo ilaa suuratu birabbinaas aynu ka gaarayno qof kasta oo markaasi waxaa weeye la socda tafsiirka sidaas ayuu ogaanayaa in markaasi qur-aanku halkaan uu ka bilaabanayo isla markaasina waxaa weeye uu soconayo ilaa laga gaaro suuratu birabbinaas laga gaarayo magaca labaatanaad assalaad ayaa la yidhaaha faatixada waxaa lagu magacaabaa assalaad ayaa lagu magacaabaa salaadaanu marka maxay tahay waxaa weeye xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa noo sheegaya suuraddan waxaa lagu magacaaba markaasi assalaad ayaa lagu magacaabaa salaadaa lagu magacaabaa waxaana salaad loogu magacaabaa la yidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu dhahay qasamtu salaata u dhahay faatixadii ayaan qaybiyey oo asalaada lagu sheegayo faatixada laga wadaa salaada hadda waxa loogu magacaabay yidhahdeen culummadu salaada ayay markaasi rugni kamida ay tahay oo haddana mar walba lagu soo celcelinayo rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu dhahay xadiidkan markaasi waxa weeye waa xadiisulqudsi alla ayaa waxa uu yidhi qasamtu salaata faatixadii ayaan qaybiyey beynii wa beyna cabdii nisfayni aniga iyo addoonkayga ayaa waxaan ugu qaybiyey faatixaduu dhahay ilaahay laba nis qasamtu salaata faatixada ayaan qaybiyey beynii wa beyna cabdii aniga beynkayga iyo addoonkayga nisfayni laba nis fa nisfuhaa lii nis oo faatixada aniga ayaa iskale oo waxaa laga wadaa aniga ayaa laygu faalinaya laygu tilmaamaya wa nisfuhaa licabdii nisna addoonkayga ay u sugnaaday walicabdii maa sa'ala ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonkaygu wixii ou su-aasho ayuu iska leeyahay waana sidaasan alla wuxuu dhahay xadiisulqudsigaas yaquulu alcabdu addoonku wuxuu leeyahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin macnaha gadaalaan ka sheegaynaa yaquulu llaahu ilaahay wuxuu leeyahay xamadanii cabdii markuu addoonku uu yidhaahdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin yaquulu llaahu caza wajalla ilaahay wuxuu leeyahay xamidanii cabdii addoonkaygu waa i ammaanay addoonkaygu waa igu xamdiyey yaquulu alcabdu addoonku wuxuu leeyahay dhahay alla subxaanahu wa tacaala arraxmaani araxiim ayuu dhahaya yaquulu rabbu rabbigu wuxuu leeyahay asnaa calaya cabdii addoonkaygu waa ifaaleeyey aad iyo aad sifo aan laayiq u ahay ayaa addoonkaygu ugu faaleeyey yaquulu alcabdu addoonku wuxuu leeyahay maaliki yowmi ddiin yaquulu llaahu alla wuxuu leeyahay majadanii cabdii addoonkaygu waa isharfay markii uu yidhi maaliki yowmi ddiin ou dhahay majadanii cabdii addoonkaygu waa isharfay oo waxaan ahay ayuu ugu tilmaamay yaquulu alcabdu addoonku wuxuu leeyahay ou dhahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin yaquulu llaahu caza wajalla ilaahay wuxuu leeyahay haadihi alaaya aayadatan oo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu ah beynii wa beyna cabdii aniga iyo addoonkayga inoo dhexaysaa walicabdii maa sa'ala addoonkaygu waxuu su-aashay ayuu leeyahay marka hadda meeshaas markii aad soo gaarto waxaa imaanaysa su-aasha ayaaba ku xigaysa su-aasha markaasi addoonku ilaahay uu weydiisanayana qaybta ducada ah oo faatixada ugu dambaysa weeye yaquulu alcabdu addoonku wuxuu leeyahay ihdina asiraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala addaaliin ayuu leeyahay yaquulu llaahu ilaahay wuxuu leeyahay haaulaa'i licabdii kelimaadkaas ducada addoonkaygaa iskale walicabdii maa sa'ala addoonkaygu wuxuu iska leeyahay wixii ou su-aasha ayuu iska leeyahay haaulaa'i licabdii kelimaadkaas alla ayay u sugnaadeen walicabdii maa sa'ala addoonkayguna wixii ou su-aasho ayaa uu iska leeyahay sidaas ayuu maaragtay yaa leeyahay walicabdii maa sa'ala suuradda tan hadda marka waxaa weeye faatixadii sidaas ayaa markaasi waxaa weeye ay u cajiib badan tahay marka hadda suuradda tan suuratulfaatixa ayaa la yidhaha suuratulfaatixa markii la yidhaahdo waxaa ku soo arooray fadligeeda axaadiis aad iyo aad u tiro badan ayaa kusoo arooray axaadiistaasoo waxaa weeye aan la soo koobi karin ayaa ku soo arooray marka axaadiista waxaa ka mid ah aynu hadda meeshaan kusoo qaadanayno oo markaasi axaadiista waaweyn qaarkood ay dhigaayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa rasuulkeena wuxuu dhahay allah wuxuu yidhi malageli yaa israafiil ayuu wuxuu dhahay yaa israafiil bicizatii wa jalaalii wa juudii wa karamii waxaan ku dhaartay cizadayda iyo jalaalkayga iyo juudkayga ayaan ku dhaartay deeqtinimadayda iyo karamkayga waa isku macno dhow yihiin taas
من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم قفك أخري بسم الله الرحمن الرحيم مرة مرة بفاتحة الكتاب نكو أخري مرة واحدة وإلي هذا بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة أخرية أشهدوا كما قاتك عداد ملائكتين أني غفرت له إنا أضاف ذنبيسي وقبلت منه الحسنات حسنوين كان أنك أقبلي وتجاوزت عنه سيئات فما يال كان أنك ضعفي ولا أحرق لسانه في النار لسان كي سنة النار كقبي مايو فاتحة إذا الأخرية بس ما لقى الله أخرية وحاوي سلاس أيها إلهي سبحانه وتعالى حديث القدس لا سوق هاي ويجيره من عذاب القبر وحن كرنا هذا الله بدنا سبحانه وتعالى حديث القدس لاس أدون كاس عذاب القبر أيان كرنا إياه وعذاب النار نار عذاب كي أيان كرنا إياه والفزع الأكبر أرجع حوين أو ما لم تقيام دعاينه وأن كرنا إياه ويرقاني قبل الأنبياء والأولياء أجمعين وهنا إلى كل ما أنبياء إيه أولياء هرطوا إلى كل ما هذا مركز كلن كانوا كلن خاصة ويه أنبياء إلهي وحلق هر مرنا مجران مركز هذا وهوي لقاء مركز خاصة أيال ولجي ده وهوي واحد دقا إمارة يا جامع الصغير كتاب قال لي رادو أيا دقا يو حديثة سوقاتي اسقوا ميلوا وين ومهمة سوقاتي هذه مركز هذا وهوي أينو هذا نوح كسي قادنو أبانا مارة يا وحكش يبنو وهوي أحاديث أو كسو أروري سورة المركزي فالله إيش إسكال هذا وإنه كسوق قادنينا حديث أو مركزي وهوي أو صحيحة أينو سوق قادنينا ومركزي وهوي إسكال هاي صحيح البخاري أينو كسوق قادنينا مركز هذا وهوي أحاديث تاسو وهوي هذا إنه سوق قادنينا معهن انت اسكالية إني أحاديث أيتا لكن سان هرأي ينقوش يعني فاتحة وهوي فالله إيش يروح لسوكو بكرمها maxaa yeelay hadii la yiri quraanka macaanidiisii oo dhan ayaa suuradan ku jirta sirta quraanka oo dhan ayaa maartay suuradan ku jirta hadii la yiri waa arin aad u cajiib marka waxaynu soo qaadanaynaa xadiis laga wariyay saxaabiga la yiraahdo Abi Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu waa uu dhahay saxaabigaas kuntu usalli waxaan ahay mid dukanaaye maalin baan dukanaaye u dhahay fadaani rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam markii aan dukanaaye ilaahay rasuulkiisa ii yeerow dhahay فلم أجيبه ما أجيب المكان فأبه لأن كنت رأيه رسولك عليه الصلاة والسلام مركوا ويري ما أنا أجيبينه سلابيد أن أسكتيه وطوضعي حتى صليته انت أن كدكره وسلابيد أن كدما يستي صلاة مركان دما يستي فأتيته رسولك وأنا أمروه صلاة مركان كبحي إسلام مركان رسولك عليه الصلاة والسلام يريسي سأن مقلاهي وأن صوبحي رسولك عليه الصلاة والسلام ينصو أكبر صوبه فقال مركان نبو حوضعي ما منعك محاكا هذي أن تأتيني إناد إيتماده أبي سعيد مركان كويري محاد دعيد ما يسي أيا نبي عليه الصلاة والسلام إذا هيوده مركا أبي سعيد وحوده فقلت وحان دعيوده يا رسول الله إلهي رسولك يسيو كنت أصلي وحانا هاينا دكنا صلاة بان كجر رسول الله سلاس أيام وحاوي آنانكو وإيماني قال مركا نبي وحوده هيوده ألم يقول الله تعالى سو إلهي مدهن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم سو إلهي قرآنكم مدهن يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إيه ذاتك مؤمنين تهو إلهي أجيب رسول كان أجيب مركي حوي أيدي يورو لما يحييكم محيد النولين عاية رسولك عليه الصلاة والسلام قفك ويورو وحن نولين عاية ونفتيس أنفع عاية أيوب ويوريا ثم قال مركا سحو دهي مركي رسولك عليه الصلاة والسلام ساسو ودهي لو علمنك أعظم سورة في القرآن إلهي بان كنت أرتيه وحان كبريا سورة مدة أولين أو قرآنك كجرت أيام كبريا قبل أن تخرج من المسجد مسجد كأنت على كبه انكار أيام سورة قرآنك أولين أيام كبريا ولكن صفات حدا قيمة إيا عظمة إلهي يكيس أي كلاب رسول كان الحقوقها سحابي قال لو علمنك أعظم سورة في القرآن وحان كبريا سورة مدة أولين أو قرآنك كجرت قبل أن تخرج من المسجد انت على المسجد كبه انكار قال مركز وحو دايوري قال مركز وحو دايوري قال وحو يري نينك ليلى أبي سعيد فأخذ بيدي رسولك عليه الصلاة والسلام قعنته يوقف مركز ويري لو علمنك أعظم سورة في القرآن أيها وحوية قعنته يوقف رسولك عليه الصلاة والسلام سوى حوية عن انتها سونا إذا جهل مامن
فلما أردنا مركان دونه دهي أن نخرج من المسجد أو فلما أراد مركو دون رسولك عليه الصلاة والسلام أن يخرج من المسجد مسجد كأنه خبحه وحوية ما يشوق عنته يسوق بناي مسجد كريحي سيئات ولا الصعودي أسوقه وحوية النبي عليه الصلاة والسلام أبي سعيد عنته كهاية مركا سيء وحي جارين يريد مسجد كي جارين أبي سعيد وحاو دهي مركي نبو أو دمعينه مسجد كخبحه قلت وحان دهي يا رسول الله إليه رسولك سيو قلت وحاد هذا لو علمنك أعظم سورة في القرآن إلهي أنكب دارتيه وحان كبريا سورة مدة أولين وقرآنك كجرت قال مركز سورة نعمها الله إلهي وكبريا الحمد لله رب العالمين أيوه وهي سورة داس قرآنك أولين والحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته أيوه وهي فاتحة هذا وحوي رسولك وحوده الحمد لله رب العالمين أسماء هذا إنه شيء وحا كمده هذا سورة الحمد والشكر وهذا وحوي الحمد وهي كمده أسماء هذا معايا لهذا عرورة الدكسية القرآن كدويسة مركي سؤاش وحاجات كجرة تاتي كيف فاتحة مركز كجرة وهي كلها الحمد أيام كجرة وحوي اسم أسماء هذا كمده معايا رسول كان يقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين أيضا سورة القرآن كأوينه وحوية هي الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين هي 7 المثاني وتنبغي لسوء العلين هاي والقرآن العظيم قرآن كويناوي الذي كاسوء تيسو ليسي وإلهي إيري سبحانه وتعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم وأنا كسينا نبي حمدو فوضع مركز سوء حوية لسوء العلين هاي أول بل وسوء العلين هاي إيه قرآن كويناي أيان خسينا وله إلهي سبحانه وتعالى إلهي عظماء أيو كتر المامي علماء الإسلام كوحي اسكوها فقصيهين شيء إلهي وين أو كتر المامو كل مركز عقل أو مخلوق كيساه أو سوك هو بكره أو سجر قرآن كإلهي سيداس أيو ويهي سيداس أيها هذا وحوية فاتحة لي أو ولي مركز أين معنى يكون نحجرنه أو نولي أنا ما عرفت يا وحيا بدنا معلومات فجر آنين شيء أيها الله قوة هميا وحوية رسول كان عليه الصلاة والسلام وين كذا يا عظمة يدعوه هميا مركز حديث كاس وحا وريي إمام البخاري أيها وريي أو كتاب كيسة صحيحة كوريي فاتحة مركز وحوية فالله إشهد وي فربرنتهي هدنا وقت كلا أيام وغد من أسيا شيء درس جيني أو مركز 10 كده تفسير في قرآنك أو هالكاس كؤد أيام مركز كسر جبينينا والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحوية حديث كاس أي دليشانيان هي إمام مالكي هي وحوية إمام الأوزاعي سلاس أي دليشانيان بالي سلاس أي وحوية دليشانيان بالي ودليل فوض سلاس أي كيم دالي مركا سلاسي ليهن بس مرضو كمد ماهن سلاسي ليهن مارت يا فاتحة كمد ماهن هي مركا هي صورة لها كلام توضب كمد ماهن ليه قف كنا وحوية أيجا رجع كمد أنا وحوية فاتحة أيو كفر فرجرين بالي قفك وحوية إمامها هذا أما سغير كيسها هذه مركا عملك أهل المدينة إمام مالك أستيس حجة وكي يسلاه روس وشاقني تاسوى حوية وبعض الأقوال وي وعلماء أي قبان وهكذا ليري قول كلاباد وياي وحوية وآيات أيا ليري أو فاتحة كمدة سورة كالسنة كمدة أيا ليري سيداس وحاقبة قراء مكة أيا قبة قراء مكة قراء ذا أيا قبة إيا كوفة إيا مارت إيا فقهدود أيا قبة ليري وهكذا قبة ليري عالمك ليري ابن المبارك أهل المذهب كمركز أفرتانا وحاقبة إمامنا الشافعي أيا قبة يساقوني أيقنا وحي دليشانيان رسول كان عليه الصلاة والسلام أيها وحوضهي إذا قرأتم مركز أخرين إيسان الحمد لله أد أخرين إيسان فاقرأوا كو أخرية بسم الله الرحمن الرحيم ومركز سوى حوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وحين كدح جرني
casharkeeni tafsiirka ahay waxaynu soo bilownay suuraddii qur-aanka ugu horeysay oo suuratu alfaatixa. suuratu alfaatixa marka waxaa weeye wax badan oo macluumaada oo ku jira ayaynu soo qaadanay casharkeeni horo. haatanna isla faatixada ayaynu ku dhex jirnaa, waxyaabo kaleentood oo macluumaada ayaynu ka qaadanaynaa oo faatixada markaasi waxaa weeye ku tacalluqaaya. bismi illaahi araxmaani iraxiim. suuraddatan suuratu alfaatixa la yidhaahdo marka ugu horeysa intaanan macnaheeda aanan u gelin waxa ay suuraddaanu ku bilaabanaysaa bismi illaahi araxmaani iraxiim ayay ku bilaabanaysaa. waxaan marka ka waramaynaa suuraddatan marka la bilaabaayo basmaladaas lagu bilaabaayo aqwaalu lculamaa'i culamadii islaamka raggii hore oo xaqii saxaabada iyo waxa weeye raggii salafki iyo ahlulmadaahibka waxyaabaha markaasi waxa weeye ay ka qabaan iyo aqwaasha markaasi ka jirta khilaafkeeda ayaynu wax ka soo qaadanaynaa. bismi illaahi araxmaani iraxiim. suuraddan hadda marka waxa weeye basmaladatan oo marka la bilaabaayo la leeyahay bismi illaahi araxmaani iraxiim waxa weeye waa la isku khilaafay. basmaladaas waa la isku khilaafay. marka hadda suuraddatan waxa weeye waa 7 aayadood. horta 7 aayadood inay taa la iskuma khilaafsana, laakiin khilaafku waxa uu ka jiraa basmaladu ka mid ma tahay mase ka mid maahan. haddii la yidhahdo basmaladu ka mid maayana 7bay noqonaysaa. haddii waxa weeye basmaladu waa ka mid la yidhahna 7bay noqonaysaa. ka mid maahan haddii la yidhahna 7 ayay noqonaysaa weye. sidaas ayaa markaasaa la leeyahay. maxaa yeela waxa weeye haddii qolada yidhaahdeen basmaladu ka mid maahan oo aynu sheegi doono waxaa markaasi ay ka bilaabanaysaa aayadda 7aad ayaga agtooda siraada aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala daaliin halkaasay ka bilaabanaysaa. marka ihdina asiraada almustaqiim meeshaas haddaan wax yar ku celino waxa weeye basmaladu waa ka mid haddii la yidhaahdo aayadda 7aad waa la og yahay waxay ka bilaabanaysaa siraada aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala daaliin ayaa hal aayad isku ah. haddii la yidhahdo basmaladu ka mid maahan oo bisinku ka mid maahan faatixadani qolada saas tiri aayadda 7aad waxay uga bilaabanaysaa gayri almaqduubi calayhim wala daaliin intaas uga bilaabanaysaa. waayahay dad waxaa jiroo kaleentoodoo 3aad laakiin aan badnaynin oo waxa weeye waa 8 aayadood yidhaahdeen oo waxay basmaladibay ku dareen. markay basmalada ku dareen ayaa waxa weeye waxay aayad ka tiriyeen gayri almaqduubi calayhim wala daaliina ayay aayad ka tiriyeen. markaasay waxay ka dhigeen waa 8 aayadooday yidhaahdeen. qolana waxay yidhaahdeen waxay ka dhigeen 6ay ka dhigeen oo 4aad oo waxay yidhaahdeen waa 6 aayadood basmaladu laakiin ka mid maahanay yidhaahdeen. labadan qowlaad marka labadan qowlo hadda dambuun sheegayno 2 qowloo marjuux oo laga raajix yahay oo waxa daweyn culamada islaamku ayna ka soo qaadin weeye. marka haddaba walaalayaal markaynu soo qaadno suuraddatan waxa weeye khilaafka xagga basmalada ah waxaa la isugu khilaafsan yahay aayad oo faatixada ka mida weeye basmaladu ayaa la isku khilaafsan yahay iyo ma ahan weeye. markii hadda saas qolada dhahaya aayad ka mida weeye faatixada waanu soo qaadanaynaa aqwaashooda. qolada dhahaya ka mid maahanne waxay qabaan suuradaha kaleentood xataa waxa weeye basmaladu ka mid maahan faatixadana ka mid maaho. qur-aanka oo dhanba basmaladu waxa weeye laga tiri maayo, aayad laga tiri maayo. wixii ka soo hara markaas suuratu namli maxaa yeele suuratu namli waxaa ugu tegi doonaa inahu min sulaymaana wa inahu bismi illaahi araxmaan iraxiim. basmalada meeshaasu waxa weeye qur-aankay kamid ka yidhahan laakiin inta kaleentoodoo basmalo ah qur-aanka kamid maaha weeye. laakiin waxay leeyihin in lagu bilowdo waa la suneeyaa sida markaa isticaadada oo kaleentood. waxaanu marka ku hormaraynaa dadka yidhaahdeen basmaladu ka mid maahan faatixada suuradaha kaleentoodna ka mid maahan haddii laga reebo suuratu namli midaas ku jirta. hadalkaas marka yaa qaba waxaa qaba maaragtay waxaa qaba quraa'u lmadiina. madiina quraa'dii joogtay oo horo ayaa qabta sidaas weeye, iyo quraa'da basro iyo quraa'u shaam ayaa saas qaba iyo fuqahadooda weeye. iyo waxaa qaba imaamka la yidhaha imaamu alawsaaci ayaa qaba. waxaa kaloo qaba imaamu maaliki. marka raggaas waxa weeye maxay deliishanayaan? waxa ay deliishanayaan xadiis laga wariyey abubakar iyo cumar iyo cusmaan
waxaana iska lahay xadiiskaas anas ayaa iska lahay xadiiska anasaa waxau ahay waxa weeye waxaan gadaashooda aan ku dukaday sida abubakaran gadaashiisa ku dukaday cumaraan ku dukaday cusmaanaan ku dukaday caligaan ku dukaday mana arag ayagoo markaasi ku furfuranaya faatixada ayagoo basmalada ku furfuranaya weye oo waxa weeye imaam ha noqdo qayrkiisa ha noqdee kaba maqalow dhahay ayagoo ku furfuranaya bismillahi raxmaan raxiim weye camalka markaasi waxa weeye ahlulmadiinane waxa weeye waa camal oo xujo ah weeye camalka ahlumadiino waxa weeye camalka ahlumadiinana waxa weeye waa xujo oo waxa weeye markaasi maalikiyadu iyo waxa weeye raggaanu waxay ka dhigtaan xujay ka dhigtaan qaar waxay yidhaahdeen markaasi oo waxa weeye culammadaas kamid ah sidaas ayaa markaasa saxiixay yidhaahdeen oo waxay saxiix yeeleen basmaladu inaysan faatixada aysan kamid ahayn suuradaha kalena aysan kamid ahayn qoladaas marka sidaasay qabaan haddii la yidhaahdo markaasi kamid weeyane iyadana markaan soo qaadano oo basmaladu waxay kamid tahay faatixada la yidhaahdo suuradaha kalentood waanu usoo noqonaynaahe iyo suurad kasta oo waxa weeye suurad qur-aanka kamid ah warkaasna waxaa qaba faatixadu waxa weeye basmalada ku jirta bisinka ku jiraahu faatixaduu kamid yahay iyo suuradaha kalentood waxaa qaba iyadana quraa'u maka ayaa qaba maka quraa'deeda iyo markaasi kuufo iyo fuqahadooda ayaa qaba waxaa kaloo qaba caalimka weyneya ee la yidhaha ibn almubaarak la yidhaahdo waxaa qaba imaamuna ashaafici ayaa qaba ayaguna daliilkoodu waxaa weeye waxa ay deliishanayaan annahu sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi xadiis saxiixa weeye isaguna idaa qara'tum alxamdu lilah faqra'uu bismi illaahi araxmaan raxiim markaad akrinaysaan u dhahay rasuulka calayhi salatu salaam alxamdu lilaahi ood faatixada akrinaysaan faqra'uu akriyow dhahay rasuulka calayhi salatu salaam bismi illaahi araxmaan raxiim ku akriyow dhahay inahaa faatixadu umulqur'aani qur-aanka hooyadiisi weeye wa umulkitaabi kitaabka asalkiisa weeye wa sabcu lmasaaniidka hooyadii lasoo celcelinaayo weeye wa bismi illaahi raxmaan raxiimine bismi illaahi raxmaan raxiimine ixdaa aayaatiha aayadaheeda ayay kamid tahay bismi illahi raxmaan raxiimine aayadaheeda ay kamid tahay saasuu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadda marka labadaas waxa weeye qowl ayaa jirta culummada islaamka sidaas ayay markaasay kala qabaan qolo walbana waxa weeye adilo ayay haysataa marka hadda haddii aynu nahay dadka soomaali madhabteenu waa madhabta imaamu shaafici basmaladu markaasi waxa weeye faatixada ayay nooga mid tahay khilaafka basmalada faatixada inay kamid tahay inuu weyn yahana waxaad ku garanaysaa oo markaasi faatixadu waxa weeye basmaladu falaa'il fara badanay iska leedahay in markaasi waa kamid la yidhaahdo qur-aanka markaad fiiriso qur-aanka marka uu bilaabo bisinka lagu bilaabo bisinka lama aayadeeyo laakiin faatixada musxafka markaad soo qaadato waa la aayadeyo ayad ayaa laga dhigay saasaad ku ogaanaysaa meeshaas markaasi arrin aad iyo aad weyn inay ka jirto oo waxa weeye basmaladu ay faatixada ay kamid tahay alxaasil waxaa la yidhi basmaladu waxa weeye ilaahay kalaamkiisa ay kamid tahay qadcan weeye khilaaf kuma jira taas oo hadda bisinku waxa weeye ilaahay kalaamkiisa inuu kamid yahay cid isku khilaafsana ma jirto weye cid isku khilaafsan taas ma jirto qofka inkira oo yidhaahda basmaladu kalaamka ilaahay kamid maahna gaal buu noqonaya waa gaaloobaya hadda markii la yidhaahdo waa aayad oo suurad kasta kamid ah mase kamid maahan khilaaf ayaa asagana ka jira a'imada dhexdooda khilaaf kaasoo kalentooda ayaa ka jira isaguna weeye marka hadda waxa weeye haddii aynu usoo noqono isla markaasi basmaladaas oo markaasi waxa weeye faatixada ma kamid tahay mase kamid maahan haddii aynu wax yar usoo laabano waxa weeye waxaa maaragtay soo qaadanaynaa xadiidka saxiixa ibnu khusaymata kiisa oo laga wariyey umu salamata radiallahu canha oo zawjadii nabiga heeday calayhi salaatu wasalaam umu salama waxay tiri ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qara'a albasmalata basmalada ayuu akriyey fii awali lfaatixati faatixada awelkeeda marka saxiixa ibnu khusayma waxaa ku taala xadiiskaas umu salame laga wariyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam qara'a albasmalata basmalada bisinka inuu akriyey fii awali lfaatixati faatixada awelkeeda fi salaati salaada uu ku akriyey wacaddaha aayatan isla markaasna aayad ayuu ka tiriyey rasuulka alayh salatu wasalaam xadiiskaa xadiis saxiixa weeye waxaa dhigaayo ibnu khusayma ayaa dhigaayo waxaa la sheegay inay markaasi ay tahay aayad oo suurad kasta kamid ah ilaa bara mooyaane waxaana arrintaas laga wariyey cabdullahi ibnu cabaasaa laga wariyey cabdullahi ibnu cabaas oo xabru caalimul umma ah waxaa laga sheegay inay markaasi basmaladu ay tahay
suuradaha qur-aanka oo dhan aayad kamid ay tahay weeye. cabdullaahi ibni cumar isaguna sidaas ayaa laga wariyey. saxaabiga la yidhahdo cabdullaahi ibni zubayrna sidaa laga wariyey. saxaabiga la yidhahdo abu hurayrana sidaasaa laga wariyey. saxaabiga la yidhahdo cali ibni abi daalibna isna sidaasaa laga wariyey. oo raggaas asxaabta faatixada iskaba daaya ay yidhaahdeen qur-aanka suuradihiisa kale ayaa basmalada ay kamid tahay. taabiciinta markaasi laga wariyey arrintaasna waxaa kamid ah cadaa ibnu abi rabaxaa kamid ah, daawuus ayaa kamid a, saciid ibnu jubayraa kamid a taabicii jaliilka ahay, makxuul ayaa kamid a, imaamu zuhri oo muxadis weyne ayaa kamid a. sidaasoo kale waxaa qaba isaguna saa horena u soo marnay ibnu mubaarak ayaa qaba, imaamuna ashaafici ayaa qaba, imaamu axmed ibnu xambal ayaa qaba riwaayadtiisa weeye. isxaaq ibnu raahweye oo waxa weeye mashaayikhda bukhaari kamid a ayaa isaguna sidaas qaba weeye. waxaa qaba abu cubayd alqaasim ibnu salaam ninka la yidhaahdo ayaa isaguna qaba. intaas waxay qabaan inay basmaladu faatixadana ay kamid tahay, suuradaha kalena waxa weye ay kamid tahay, aayad kamid ay tahay weye. marka raggaa saxaabada ee ajilada ah iyo waxa weeye raggaa taabiciinta oo raggi waaweynaayo cilmulxadiiska iyo waxa weeye fiqhiga iyo markaas si loogaga dambeeyey ay yihiin, waxay qabaan basmaladu inay waxa weeye ay tahay aayad oo faatixada kamid a, xataa qur-aanka intiisa kale sheegeen. imaamu maaliki waxa uu yidhi iyo abu xaniifa oo ragga ayaguna ahlumadhabka ah iyo asxaabtoodu saa hore isoo sheegnay, laysat aayatan min alfaatixati yidhaahdeen walaa min gayriha min asuwahay dheheen. basmaladu ma ahana yidhaahdeen mid oo kamid a faatixada kamid a ma ahana yidhaahdeen, suuradaha kalentooda qur-aankaana kamid ma ahana yidhaahdeen. saxiixu lbukhaariga waxaa ku sugan xadiis laga wariyey anas horena aan usoo sheegnay annahu su-ila in laga su-aalay ninka la yidhaahdo anas ibnu maalik oo khaadimka nabiga ahay can qiraa'ati nabiyi sala allahu alayhi wasalama, nabiga qiradiisa ayaa wax laga weydiiyey. faqaala markaas wuxuu dhahay anas kaanat qiraa'atu maddan, qirada nabiga alayhi salatu salaam waxay ahayd maday ahayd, waa qiro markaasi la taagtaagaayey oo marka la sugay ahaye. markii sidaas anas uu dhahay uma qara'a wuxuu akriyey bismi illaahi araxmaani araxiim ayuu akriyey. yamuddu isagoo madaayo taagaaye bismi illaahi taagaaye, wayamuddu arraxmaani asagoo madaaye asoo taagaaye, wayamuddu arraxiimi arraxiimi isagoo taagaaye. waxaa kaloo kaleentoodo anas laga wariyey xadiisu saxiixayn bukhaari iyo muslim saa horena u sheegnay. anas wuxuu yidhi sallaytu khalfa nabiyi sala allahu alayhi wasalama wa abi bakrin wa cumarin wa cusmaan. sallaytu khalfa nabiyi sala allahu alay wasalama wa abi bakr wa cumara wa cusmaan. waxaan ku dukadow dhahay abubakar gadaashiisa ayaan ku dukaday on salaada ku dukaday. waxaan gadaashiisa ku dukaday sayd cumaraan ku dukaday, sayd cusmaanaan ku dukaday. fa kaanuu yaftatixuuna bilxamdi lilaahi rabbi alcaalamiin, waxay ku furfura jireen alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin. oo faatixada markay akraayaan alxamdulilah rabbi ay ku bilaabeen o dhan. riwaayad muslimkiisa waxay ahaaday laa yadkuruuna bismi illaahi raxmaan raxiimi ayuu anas ku diray warka, oo waxa weeye bismi illaahi raxmaan raxiim ma aysan dhehaynin fii awali qiraa'atin, qirada awelkeeda weeye, walaa fii aakhiriha xataa aakhirkeedana ma dhehayn. saas ayaa markaas xadiiskaas oo xadiis saxiixayn anas isaguna sidaas ayuu wariyey. culamada islaamku hadda waaweyn sida hadda imaamu bayhaqi oo kaleentood iyo amuuraha kan marka ay ka warramayaan waxay leeyihiin markaasi dadkan markaasi waxa weeye muxadisiinta gaar ahaan waxa weeye saxaabada markii aqwaashoodan iyo lasoo qaado waxaa dhici kartay leeyihiin in qaarna waxa weeye basmalada ay maqleen ay nabiga ka wariyeen, qaarna waxa weeye basmalada ayna nabiga ka maqal ee nin walba wixii uu weriye markaas isaga uu sheegay. laakiin hadda markii waxa weeye arrintaasi la fiiriyo basmaladu maadaaman ay tahay shay ilaahay agtiisa ku weyn oo haddana shay xirsiya ay tahay, sidaan hadda basmalada xoogaan uga sheegi doono, isla markaasna aan la isku khilaafsanayn ilaahay kalaamkiisa inay kamid tahay, kalaamka ilaahayna ay kamid tahay, waxaa fiican baa layidhi mar walba in markaasi arrimahaas ugu roon tahay in basmalada waxa weeye lasoo qaato. marka hadda basmalada tan markii qolana ay yidhaahdeen kamid maahan faatixada, qolana kamid waayo ay yidhaahdeen, salaada jahriyada xukunkeedu see noqonaya? salaada jahriyada xukunkeeduna wuxuu raacayaa labadaas qowl ayuu raacayaa. raggii yidhaahdeen basmaladu waxa weeye kamid maahan faatixada kamid maahan, ayagu waxa weeye lama jahraayaan salaada dhexdeeda, hadday salaadu ay jahriyo ay tahay lama jahraayaan. marka sidaas ayaana markaasi waxa weeye xadiiska hadda aynu soo qaadanaynay khulafada afartaa saasaa ka sugnaatay ayuu dhahay saxaabiga la yidhahdo anas ibnu maalik weeye, iyo markaasi ninka la yidhaahdo cabdullaahi ibnu muqafal la yidhaahdo
iyo rag kaleentoodoo waxa weeye ayaga markaasi raacsan weeye dawaa'if kaleentoodoo markaasi salafu taabiciin kamidane sidaasay qabaan iyo khalafkaba weeye sidaas waxaa weeye madhabta abu xaniifa iyo thawri iyo imaamu axmed riwaayatiisa ayaa sidaas iyaduna qabta marka sidaasaa waxaa weeye faatixada basmaladeeda markii la yidhaahdo culamada islaamka markaasi sidaas ayaa waxaa weeye ay u kala qaybsan yihiin marka haddaba waxaa weeye dhibaato ma laha arrintaasu ikhtilaafka waxaa weeye ummadda raxmada ku sugan hase yeeshee waxaa loo baahan yahay cibaadadu sideedaba inay meel oo saxiixa ay ku cuskanaato haddii ay ku cuskan tahane inaad wej oo kaliya aad ku socotee hadba inaad dhan u orodo ma fiicna ummadda hadda soomaaliya anagu ka mid nahay waxaa weeye waxaa markaasi madhab ahaan ay ku socdaan cibaadadooda cibaadada sideedaba waxaa weeye inay madhab ku dhisan taha loo baahan yahay sida culamada islaamka waaweynaa ijladaha ay qabaan oo qofku markaasi malad uu cibaadaysanayo inay cibaadadiisa markaasi meel oo mashraca uu ku jideeyo oo meel uu marsiyaa la doonayaa marka hadda waxaa weeye basmalada waa khayr badan tahay aad iyo aad ayaana markaas waxaa weeye axaadiis iyo asar fara badan oo ku soo arooray ayaa jira waxaa laga wariyey ninka la yidhaha caddaa oo uu ka wariyey saxaabiga la yidhaha jaabir ibni cabdillaahi radi allahu canhuma waxa u dhahay jaabir markii ay soo degtay bismi illaahi araxmaan iraxiim haragal kaymu waxaa cararay ayuu dhahay saxaabka ayaa cararay oo mashriq ayuu u carayray wa sakanat iriyaax dabayladuna way xasileen wahaaja albaxru badduna way kacday wa asqad ilayha albahaa'imu bahaa'imtuna way u dhega raariciyeen oo dhegaha ayay u raariciyeen wa asqat ilbahaa'imu biiduniha wa rujimat ishayaadiinu shayaadiintana waa la rajmiyey waxalafa allaahu caza wajalla ilaahayna waa dhaartay caza qaalibaha jalla weyna bicizati ayuu ku dhaartay laa yusamaa ismuh ilaahay magiciisa inaan lagu magacaabin calaa saqamin mid jiran ilaa shafaa'ullahu ilahay inuu shaafinaayo walaa yusamaa ismuhu ilahay isimkiisa inaan lagu magacaabin calaa shayin ilaa baaraka minhu fiihi ilaahay waa barakaynaya waman qara'a bismi illaahi araxmaan raxiimi qofka ahriyane dakhala aljanata jannada ayuu gelaya sidaasaa marka waxaa weeye basmaladu shay aad iyo aad u weyn tahay marka haddee basmalada in la qaato ayaa aad iyo aad u fiican xadiis laga wariyey abi waa'il oo laga wariyey cabdullaahi ibni mascuud ayaa wuxuu ahay waa u dhahay rasuulku calayhi salatu wasalaam maya cabd ibni mascuudaa dhahay laakiin xadiiska markaas marka dambe waxa uu ka dhigayaa xadiis markaasi waxa weye uu rafcinaayo weye waa u dhahay man araada an yunjiyahu llaahu qofkii doonaya ilaahay inuu ka koriyo min azabaniyati tisc zabaniyada malaa'igta ah oo sagaalka haw dhahay falyaqul ha yidhaahdo bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan dhihi lahay meeshaas man araada ruuxii doonaya dhahay an yunjiyahu llaahu min azabaniyati 19 weeye malaa'igta zabaniyada oo 19 oo ilaahay qur-aanka uu ku dhahay calayha 19 qofkii doonaya in laga koriyo falyaqul ha yidhaahdo bismi illaahi raxmaan raxiim fa inahaa 19 xarfan maxaa yeelay bisinkaa wuxuu yahay 19 xaraf waa u dhahay liyajcala allahu tacaala ilaahay inuu uga yeelo likulli xarfin minhaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu uga yeelo xaraf kasta oo kamida junnatan gaashaan ugaga yeelo gaashaan inuu ugaga yeelo min waaxidin minhum mid kasta oo malaa'igtaas zabaaniyadaa kamida loogaga celiyo weeye marka hadda waxaa weeye basmaladu sidaasay maaragtay ahay cajiib ay u tahay mar hadday sidaas tahane in la soo qaataahu waa shay aad iyo aad u wanaagsan mar haddii waxaa weeye kalaamkii ilaahay ay kamid tahay haddana saasay u khayr badan tahay faatixada waxaa weeye basmalada in lagu akriyo ayaa shay aad iyo aad maaragtay u wanaagsan ah weeye basmalada waxaa weeye waxaa la weriyey rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markiisii hore markuu wax qoraayo bismika allaahuma ayuu dhihi jiray ilaa ay ka soo degto waqaala arkabuu fiiha bismi illaahi majraha wa mursaha markaas ayuu waxau qora nabigu bismi illaahi ayuu qoray markii ay soo degtay qul idcu llaaha aw idcu raxmaana waxau qoray bismi illaahi araxmaani markii ay soo degtay inahu min sulaymaana wa inahu bismi illahi raxmaan raxiimine waxau qoray rasuulka calayhi salatu wasalaam bisinka dhammaantiisa u qoray bisinka dhammaantiisa ayaa markaasuu qoray marka hadda waxaa loo baahan yahay basmaladu sidaas ayay maaragtay u weyn tahay in markaasi basmalada wax weyn la siiya ayaa la doonayaa bismi illaahi araxmaan raxiim alxamdu mahadow dhah ilaahay saabitun kii sugnaaday weeye xamdigii lilaahi ilaahay ayuu u sugnaaday allihii rabbi alcaalamiina maaliki alcaalamiina makhluuqaadka kii milki ahay alxamdu mahad hadda waxaa weeye faatixadii macnaheedii baanu guud maraynaa alxamdu mahad saabitun kii sugnaaday weeye waa jumlo khabariya oo loola qastaayo asanaa cala allah
إلهي لفعله سبحانه وتعالى الحمد ما هذا إلهي ثابت في سنادي ويحمد لله إله سنادي اللي رب العالمين مالك العالمين مخلوقات كيمن فيها جن يا إنس يا ملائكة يا الدواب يا غير كودوي عالمين هذا مركز ليه وحاله يسوي إطلاقا وحي عقلاء لكن هذا ماشان ما سوى الله سبحانه وتعالى وحى الله لوحي إليك سوهرة ودن عيال لورجي ذا عقلاء يا غير كودا اللي الرحمن نحريس عام كان حريسنا يي اللي الرحيم نحريس خاص كان حريسنا يي الله هو ذي الرحمة إلهي ذي نحريس أصحيك هاي وأنا وي رحمة إرادة الخير لأهله خير الله دون أو أهل كيس الله دون أيال إرادة اللي الرحمن نحريس عام كان حريسنا يي المعمم رحمته في الدنيا على المسلمين وعلى الكفار وي نحريس إلهي الدين كان أيت الماميسا ورحيم لويك حيل ليرتهي قال إيه مسلم أيانا وذهلاية معايا الدنيا كان قال هذا إيه مسلمينته فحمد إلهي وذهلاية بل وعلى بأكريس إنه قال هذا أي بطغان معايا الدنيا إلهي اتيس وحقه ما كملها الرحيم من أحال غيبة المخفف رحمته في الآخرة على المسلمين دون الكفار وي اللي مالك يوم الدين على المرنت مالنت هذا بقر مالك أهي اللي مالك يوم الدين على المرنت مالنت هذا مالك أهي وي يوم الجزاء ويا يوم القيامة وي دير يا واحد لو خف ساليري ملك أو ظاهرة ما جرى ليري مالنت وي وأحد أسكليه وي إلا الله سبحانه وتعالى وي معايا الله يقول دونا خلايق ذا لمن الملك اليوم وملك جاي أصلنا هذا مانت شو ذا لو اللي مركز إلهي وحليه لله الواحد القهار إلهي الواحد القهار كأي أصلنا هذا مركز هذا مالك إيه ملك لغدا والأخياء لغدا رؤوا سبعيتين ها كتبا مركز هديه وحوية مالك لولاده وحا مركزي مالك وحاو نقونا إياه وحاو نقونا إياه مدوح ملكية أيو نقونا إياه ملكنا وحالا ملكي ومدين أبال مرنتا مالنتاذا بقرت هايوي لغدا قرأ وحا حيل ديرا لمركزي ملكي أيا حيل ديرا لي هو عامسنا لي مالكنا كحيل ديرا لي معايا لو حيل لي هذا كل ملك مالك عليه متكسر بقرة مالك عليه محايا ننك بقرة كوم يحوينها مالكنا واي يروح اسكليها انتي جوني اسكليها هذا لكن متكسر مالك بقرة ما أهنا لي ولا عكس وي مركز هذا وحاوي ننك وحالي ملك هو بقرة أمر كيس مالك ويا كفولها لي ومركز وحاوي مالك أصدق عليها كنت تصرفها أي مالك كيسة لكن ملك وحاوي مالك أمر كيس كفولها لي علماء قاعدين وحيلة للمالك يا حيليرو زيادة أو بنها أو ألفت زيادة أي مركز خير الإرادة كينيسة كثرة الثواب المركز كينيسة لغدا سالي لكن لغدا قرأ ملك إذا آياتي حيليروي إياك أذيك أن نعبدك عابدنا هود إلهي إياك أذيك أيان نعبد ما شاء هريحة كقدر هذي قولوا لها الحمد لله وإنت نوضا نوص ودعا إنه نقول قول أي نقول الحمد لله رب العالمين لها الرحمن الرحيم لها مالك يوم الدين لها إياك أذيك أيان الله نعبدك عابدنا وإياك أذيك أيان نستعين كاسا المدينين إياك نخصك بالعيادة عيادة إله ينكو قاري إلينا توحيد يطيب كيس أو إله با عديسة وعنا كادل بينا معه إنا نوكا الميسو أيام كادل بينا عبادة إيا غير كده نوكا الميسو في أسمرك إلهي سبحانه وتعالى سفر لائق الله وصيح هدنا وحوي إلهي سبحانه وتعالى أدوه أسود ليه أو الله سبحانه وتعالى وهيستغي وحا إلهي ويدي سنة دعونا مركا مستجابة نقونيسا سيدة أو الله وحير وحاسي لها هدنا إهدنا نهنوني الصراط طريق المستقيم أو توصناي إهدنا الله نهنوني الصراط طريق المستقيم أو توصناي كبدل صراط الذين كل طريق ودي نهنوني أنعمت أعظم معيسي ألين كرقودة صراط الذين كل جيد كودي نهنوني أنعمت أعظم معيسي ألين كرقودة أو هداية معيسي وأقول إلهي سبحانه وتعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيعا كل إلهي سبحانه وتعالى كل غير المغلوب عليهم كل اللي يعرض غير كل هاي كل اللي يعرض يهود وينبو سو شهده ولا الله علينا ولا غير الله علينا كل ما يؤد غير كل أنا هوي وعوي كل مركز كل نصارى وي إذا هذا الآن وحي يتكئ يسيعيد جهال أهوي مركز هذا وحوي إلهي يقول هاي كل غير المغلوب عليهم كل اللي يعرض غير كل مغلوب عليهم اليهود والله رسولك عليه الصلاة والسلام كل اللي يعرض يهود وي والله لين تنوح وي النصارى وي نصارى ايغو مركاسي كتبتوي تحريفوها وحبا عنان هيسانين اي جاهل نمكو عيسين
ku cibaadaysteen nimankan yahuuddaane ayagoo cilmi leh ayay kitaabkoodii ka tageen markaasaa ilaahay caradiisa ay ku dhacday caro ilaahay waa ku dhacday sa hadda insha allahu tacaala marna waanu ku tegi doono marka hadda faatixada marka la dhameeyo waxaa la yidhahdaa aamiin ayaa la yidhaahdaa aamiintaa marka lafdiga aamiin faatixada kamid maahan qur-aankana kamid maahan khilaaf kuma jiro asaga yeeshee in lala yimaado oo qofka qaari uu faatixada akrinaayo inuu la yimaado asagoo ka faslinaayo sagta la dhiifaa asagoo ka faslinaayo faatixada si loo kala sooco wixii qur-aana oo loogaga sooco waxaan qur-aan ahayn ayaa loo baahan yahay marka hadda waxaa weeye waa ismu ficil sida saxiixa weeye bimacnaa istajib weye ilaahu ajiib oo markaasi fatxa lagu baneeyo waxaa banaan baa la yidhi markaasi madulhamsatiya hamse aamiin la yidhahdo iyo in la qaso amiin la yidhahdo aamiin la yidhaahdo waxaa kaloo yii waa ismu min asmaa illahi tacaala taqdiirkina yaa aamiin waayaa layidhi marka hadda axaadiis soo aroorta waa jirtaa oo waxau dhahay nabigu ilaahay umadayda wuxuu siiyey 3 ouna siinin qablahum ayaga hortooda axad kale uusan siinin salaamta iyo markaa oo ah markaa taxiyatu ahliljanna sufuufta malaa'igta iyo aamiinta weeye ilaa maa kaana min muusa wa haaruun wixii ka aada mooyaane taas waxaa weeye muuse wuxuu habaara fircoon nabi haaruuna waa ka aaminiyey markaasaa ilaahay wuxuu dhahay subxana watala qad ujiiba dacwatukumaa marka labadaas waxaa laga soo qaadaya inay duco ay wada ahaayeene hadda aamiinta waxaa weeye ummatu maxamed ay khaas ku tahay baa layidhi waana shay aad iyo aad u muhiima oo markaasi cajiiba weeye oo wax badan ayaa markaasaa ku suganoo ducada dhan oo lasoo akrinaayey ayay shaabad u tahay haddana waxaa la sheegay darajo oo jannada ku sugan inay tahay marka waxaa weeye waa 4 xarafaa la yidhi aamiintu weeye ilaahayna wuxuu ka abuurayaa mid kasta malag oo ka abuurahaa layidhi oo dhahayo allahuma kfir likulli man qaala aamiin ilaahay qofku aamiin yidhi dembigiisa dhaaf u dhahayo marka aamiintane sidaas ayay faatixada muhiim ugu tahay marka casharkeeni intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu